inkastoo militariga Israa'iil ay sheegeen in boqolkiiba 99 gantaale lagu soo tuuray diyaaradahan duuliyaha lahayn ee Iiraan la qabtay iyagoo aan gaarin halkii loola dan lahaa. Iiraan ayaa waxay sheegtay in weerarkan uu jawaab u ahaa weerar lagu qaaday dhismo diblomaasiyadeed oo Iiraan ay ku lahayd Syria 2 toddobaad ka hor. Haddaba halka xaalku ku dambeyn doona ayaa waxa ay ku xidhan tahay go'aanka ay Israa'iil ka qaadato sidii ay uga jawaabi lahayd weerarkii habeen hore wadamada gobolka iyo kuwa meelo kaleba ku yaala oo ay ka midka yihiin kuwa aan jeclayn nidaamka ka taliya Iiraan ayaa waxay ku boorinayaan Iiraan isxakamayso. Mowqifka Iiraan ee hadda ayaa xaalku waa degan yahay, hawshiina intaas ayay ku dhammaatay, waxna ha soo tuurina haddii kale midtan ka daran oo aadan ka waaqsan ayaa idinku dhici doontaa. Balse Israa'iil mar hore ayay wacad ku martay inay jawaab adag ka bixin doonto. Dowladda haatan ka talisaana waxaa loogu yeeraa tii ugu go'aanka adkeyd ee soo marta taariikhda Israa'iila. Waxay jawaab ka bixisa weerarkii Xamaas ee 7 Oktoobar iyada oo weerarto koonfurta Gaza saacado gudahood kadib waxay 6 bilood ee xigtay duqeynka waday marinka Gaza. Golaha dagaalka ee Israa'iil ayaa waxay u badan tahay in jawaab la'aan aysan ka hari doonin weerarka tooska ah ee Iiraan, ase yeeshee waxaa xadidmay waxyeelladii uu ka geysan lahaa dhulka. Waxaa laga yaabaa inay dhegaysato waxay u sheegayaan dariskeeda gobolka oo ay samayso waxaa loo yaqaanaa dulqaadka istiraatiijiga ah oo ay iska daysa inay jawaab bixiso, balse taas beddelkeed ay beegsato kooxaha gobolka ee xulufada la ah Iiraan sida ururka Xisbullah ee Lubnaan ama xarumaha ay hubka u dhigtaan ee ku yaala Syria, taasoo ay muddo dheerba samaynaysay. Sidoo kale Israa'iil ayaa waxaa laga yaabaa inay qaado weeraro argudasho oo xiriira kuwaasoo si taxadar leh loo qorsheeyey lana isticmaalaya gantaalada ridada dhaadheer kuwaas oo lala beegsanayo oo keliya saldhigyada laga soo tuuray madaafiicda. taasi weli waxay Iiraan ula muuqan doontaa xiisada oo la sii kicinayo maadaama ay noqon doonto markii ugu horreysay oo Israa'iil ay si toos ah u weerarayso Iiraan sida ay ku samayso kooxaha ay taageerto ee gobolka. Ama waxaa laga yaabaa Israa'iil inay hal tallaabo sii korto jaraanjarada xiisada sii kacaysa iyadoo sii ballaarinaysa jawaabteeda suurtagalka ah iyadoo beegsan karta saldhigyo, xerooyin tababar iyo xarumo talis hagis oo ay iska leedahay ciidamada awoodda badan ee ilaalada kacaanka Iiraana. labada khiyaar ee ugu dambeeya kii ay doorataba waxa uu halis gelin karaa inuu xaalku sii xumaado oo Iiraan mar kale argudsi samayso. Su'aashu waxa ay tahay in haddii waxaas dhacaan uu Maraykanku ku soo biiri karo, taasina ay sababto dagaal toos ah oo dhex mara Iiraan iyo ciidamada Maraykanka ka jooga gobolka. Maraykanku waxa uu saldhigyo militari ku leeyahay dhammaan 6 waddan ee ku yaala gacanka Carbeed iyo sidoo kale Syria, Ciraaq iyo Jordan. ciidamadaas oo dhan ayaa waxay beegsan karaan gantaalada culus ee kaydsan ee balastiga ah iyo kuwa kale ee muddada ay samaynaysay Iiraan iyadoo aan u joojin xayiraadaha caalamiga ah ee la saaray. Iiraan ayaa sidoo kale waxay samayn doontaa arrin ay muddo dheerba ku hanjabaysay. waxay isku dayi kartaa inay xirto gacanka istiraatiijiga ah ee Strait of Hormuz iyadoo isticmaalaysa miinooyin, diyaaradahan duuliyaha lahayn iyo doomaha dheereeya ee dagaalka, iyadoo cunaha qaban doonto ku dhowaad rubuc shidaalka adduunka laga isticmaalo. taasi waa filasho aad mugdi u ah, taas oo dagaal ballaaran isugu keeni karta Maraykanka iyo wadamada khaliijka ee gobolka, taasoo waqti xaadirkan ay isku dayayaan wadamo badan in ay baajiyaan.